بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابته ولا لها قالقة هل كان كسور دوادا وكوش مريم عبدي وحنا سي وضنينا إن شاء الله تحرهني بركيسنا أو كسابسنا xiriirka wanaagsan hore waxa uga soo hadalnay muwaadiic kala duwan oo isla taxanahaas ku saabsan haddaad jeceshahay gadaala fiidiyoodadii hore u noqon kartaa maantana insha Allah waxaan dhammaystireynaa aayadda hore u bilaabnay oo ahayd in suuratul a'raaf in fact aayadda ee dhaheen culimada waa yani jaami'atun limakarimil akhlaaq wixii soo aruurisay yani isku soo aruurisay akhlaaqda wanaagsan qofkii raba inuu lahaado sidee buu yani ila dhaqanka wanaagsan sida dadku ula dhaqmi karo aayadaas inuu fahmo aayadaas inuu si fiican noloshiisa ugu dabiqo aayadaas waxay ahayd khud al-afwa wa'mur bil-'urfi wa'rid 'anil jaahiliin khud al-afwa waxa ka qaadataa dadka wixii ku muujiyaan akhlaaqdooda wanaagsan ee ku muujinaan ka qaado sirtooda waxyaalaha ay jecleen inay ku muujiyaan هسي باربارين وأمر بالعرف مركا قفك وانينيسد أربتد إنو وحفي عن إنو سمعيو أما وحن إنو اسكدافو تلا سيد وناكسن ولا تالي سي أو حكمو كجرتو سي أو يعني نحريس كجرتو واني تنصدحات أمانتا كهرليننا وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين وحي كساب سنتها يعني جاهلك ما قفك يعني وح أخرين كرين qofka wax qori karin taas laga bahadlayo jaahilka ee aayadan ay ka hadlayso waxa waaye qofka oo akhlaaqdiisa oo jaahilka ka ah qofka yani aragtida iyo akhlaaqda ay ku yaartahay akhlaaqdiisa yani aragtidiisa ay gaaban tahay oo dabeecadiisa qalafsan tahay sidee qofkaas amal oo la xiriiri kartaa maanta insha Allah waxaan nii soo diyaariyay jecla inaan la wadaago 5 wax oo ka caawinaya 5 talo ama 5 tips oo ka caawinaysa sida qofka oo yani dabeecadiisa adag tahay oo yani akhlaaqdiisana yar tahay sideeba ula dhaqmi kartaa oo liba tan shanaad waxay ku saabsan tahay ducooyin iyo qisad oo ku saabsan oo yani sideeba ilaah uga bari kartaa qofka oo akhlaaqdiisa wanaagsaneen inuu ilaah shartiisa ka qabto oo sida ugu wanaagsan oo la xiriirtid marka akhyaarta intaan guda galin insha Allah 5 tips aan ka hadli doono because waa 5 oo يعني qodob oo training ah waa tababar oo aad ku caawin doona that's why macluumaad kan ina xasuusatid ama ina qoratid bi ku fiican tahay because hadhow situation aad u baahan doontid macluumaadkaas ina xasuusatid ama macluumaadkaas ina ku dhaqantid ba imaan doona so please qalini warqad soo qaada ama si fiican u xafid insha Allah tan u horeysa ala barakatillah tan u horeysa waxaad xasuusataa markasta xaqiiqo oo ah your words are window to your heart erayada aad ku hadlaysid waa muraayad oo ku tusaysa qalbigaada erayada aad isticmaalaysid ama hadalada aad ku hadlaysid waxay ku tusaysaa gudahaada qalbigaada dabeecadaada bi ka tarjumaysaa tusaalo qofkii oo yani gudihiisa qalbigiisa wanaagsan yahay markasta yani erayo wanaagsan buu ku hadlaa erayo qurxoon buu ku hadlaa hadaladiisa run bay u badan tahay yani hadal wanaagsan oo yani qurxoon buu markasta dhahaa laakiin qofka oo qalbigiisa wanaagsaneen oo ama yani gudihiisa mastabka yahay yani khalal badan ka jiro markasta qofkaas waxa laga yaabaa hadalkiisa wuxuu u badan tahay ama hadal been ah ama erayo qalafsan oo yani qofka kala dhaawacaysa hadallo wanaagsaneen oo yani diinteena iyo akhlaaqdeennaba ee raali ka ahayn markasta horta anaka waa inaan ka fiirsana hadalladan ku hadlayno because saameyn weyn waxay ka tarjumaysaa gudaheena qofkii oo jaahilka akhlaaqdiisa ka tahayna qofkii oo aragtidiisa ay gaaban tahay markuu kula hadlaayo oo especially yani ra'yigiisa oo asaga ka qaba adiga oo kula wadaagayo waxa muhiim ah inaad xasuusatid qofkan hadallada afkiisa ka soo baxaya erayadu ku hadlaayo يعني حقيقديس أساقي كترجميسا قديس وحو أساق كترت كترجميسا مركا محال لغا ربا أديغا وحال ربا إناد يعني إناد دربي يجدار أو استد قلبي قادا ويعني هذا الكيس إنو قلبي قادا تابانين با هذا القصتو أكودها يانا لكتانا كجلينيسا
tanna waa kasoo bixinaysa because saameyn dhan inay ku lahaato qalbigaada ma aha lianna qofkan asagaaba gudihiisii yani khalal iyo tashwiish badan baa ku jira. marka aad iyo aad waxaa uga fiirsataa qofkaas hadalkuu ku dhahayo ama hadalkuu kula wadaagayo asaga xaqiiqadiisii ka hadlaysa. so it's not about you, it's about the other person. wuxuu kula wadaagaya hadduu hadal fiican kula wadaagayo waa wax fiican, laakiin hadduu wax khalad kaa sheegayo ama adiga si oo direct ah ama si dadban yani si indirect ah wax kugu sheegayo oo hadallo uu kugu tuurtuurayo, waxaa xasuusataa ibni aadankan wax afkiis ka soo baxaya waxay tarjumaysaa waxa gudihiisa ku jiro, and it has nothing to do with you. wax adig ku khuseeya ma aha, wax oo adiga yani you don't have to personalize it. qodobka labaad, waxaad ku mashquushaa inaa adiga naftaada baratid. baro naftaada, baro waxyaalahaad ku fiican tahay. waxaa kaloo barataana ciladahaada because adi qof perfect ah ma tihid, qof isku dheelitiran ma tihid. yani alkamaalu lilah, ilaahay unbaa yani perfect ah. marka adiga ciladahaada, waxyaalaha u baahantahay inaad sii kobcisid, waxyaalaha yani dabeecadaada waxyaalaha kamid ah u baahantahay inaad yani ku fiicnaatid. for example haddaad tahay qof oo go-aamadiisa dhaqso u gaaro oo yani ficili emotions intuu qaado hadhow go-aan culus gaara, hadhowna ka shalaynaya, yani go-aamo dhaqso intaa gaarta hadhowna shalaygaadana badan yahay. ama aad tahay qof dhaqso u xanaaqa, ama aad tahay qof oo sensitive ah, yani wax yar hadii loo sheegaba yani saameyn weyn dareenkiisa ku leh. marka adiga ciladahaada aad is ogtahay, aad naftaada aad daristay, aad tan labaadna aad aqbashay, aad naftaada aqbashay inaa perfect ma tihid, waa aqbala naftayda. tan saddexaadna aad ka shaqaysid naftaada, yani sida usii fiicnaysiin lahayd. haddii xanaaqtahay seebaa xanaaqayga u xakameyn karaa, haddii abaad يعني go-aamadayda dhaqso u gaaray seeba yani go-aamo oo xikmad laha u gaari karaa. waxyaalahaasoo dhan markaa naftaada ogtahay, hadhow markuu kuu imaado qof oo akhlaaqdiisa ay yar tahay, yani aragtidiisa iyo tixgelka dadka ay ku yar tahay, ama sidii aayadda sheegaysa qof oo jaahil akhlaaqdiisa ka ah markuu kuu imaado oo ku dhaho by the way ma ogtahay adi inaa very sensitive tahay, already maxaa ugu jawaabaysaa adiga? yani shock kuguma noqonayso, surprise kuguma noqonayso. maxaa ugu jawaabaysaa marka? waad mahadsantahay aad iyo aad arrintaas ay la wadaagtay, wax cusub ma aha, maxaa kaloo ii sheegaysaa? I already know myself, waa oga ani naftayda, wax cusub maad ii sheegin. marka yani taas yani qofna uma isticmaali karo yaa markuu sheego ciladahaada ma uu isticmaali karo as a weapon oo adig kugu attack gareynayo, because already waa ogtahay naftaada, waana ka shaqeynaysa, waana ku tali jirtaa sida uga shaqeynayd. laakiin qof oo naftiisa ogeyn haddaad tahay, yani denialkaada badanaya oo ma anigu saas dhahay, ma anigaa saas ah, ama way kugu weynaanaysa alla ma anaa saas ah, oo xitaa waxay keeni kartaa sometimes in yani low self esteem kaadi oo yani adig confidence kaadi iyo kalsoonidii naftaada hoos u degaysa markuu qof oo hadaladiisa toxic yahay oo kula wadaago waxyaalahaad ku fiicneen. markaa naftaada baratid, taasna yani protection ku tahay hadalada ibni aadankaas waa iska ilaalinaysa, wax cusub ma kuu sheegin. at the same time-na waxay kobcinaysaa kalsoonida aan naftaada ka qabo. qodobka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay marna waqtigaada iyo enerjigaada ha ku beerdareen inaa u jawaabtid, inaa la murantid qof akhlaaqdiisa fiicneen, qof dabeecadiisa ee xun tahay ama akhlaaqdiisa ee fiicneen, especially markuu adiga oo yani ku ataaggareynayo adiga ama ku caynayo ama hadal fiicneen oo adiga kugu dhahayo directly. marna waqtigaada enerjigaada ha ku beerdareen, because fiiri adi ibni aadankan mana bedeli kartid, mana controli kartid, yani ma xukumi kartid actionkiisa, hadalkiisa, afkiisa kasoo baxaya. laakiin waxa adi xukumi kartaa adiga hadalada ku hadlaysid, adiga yani ficilkaada iyo maxaa la yiraahdaa iyo dhaqankaada adi xukumi kartaa, laakiin kiisa ma xukumi kartid. therefore marna adiga waqtigaada enerjigaada ha ku beerdareen. in fact يعني badanaa dadka akhlaaqda xun waxyaalaha ku farxan waxa kamid ah markay ku arkaan adigoo sidooda camal, yani hadii afkooda wax khalad oo ka soo baxay oo adigana khaladkii iyo hadal wanaagsaneen iyo eray wanaagsaneen adigana ina yani same level ina la noqotid. markasta waxa laga rabaa ina adiga chance kaas ba hasiinin,
jaaniskaas inay ku arkaan adigoo ku xanaaqay ama ka xanaaqa hadalkooda haba siinin jaaniskaas hadal kooban ku dheh ama ignore garayba sidii aayadda yani aayadda qur-aanka sheegayso waa acrid can iljaahiliin qofka jaahil markuu yahay akhlaaqdiisa jaahiliya waaba ignore garaynaysaa ama hadal gaabana u sheegaysa ama waaba ka soconaysaaba asagoo dhanba maba tixgelinaysa because jaanis uu ku farxa qofkan kale maba siinaysidba haddaan kasoo qaado tusaale oo yani qodobkaas ku saabsan nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga iyo xaaskiisa caaisha radiallahu canha maalin bay fadhiyeen and then waxaa soo hormaray dad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam way nabcaayeen marka yani salaamu calaykum bay dhahayeen laakiin si dadban bay waxay u dhahayeen yani way habaarayeen calayka saam bay ku dhah yani sunha kugu taala ama suncun something like that marka calayka saam si dadban bay yani u habaarayeen marka عائشة رضي الله عنها وفهمتي نبينا عليه الصلاة والسلام وفهمي لكن عائشة فعل كذي باقاضي مركز هذا البضن بكل هذا يكون علينا يسوسو she wasted her time and energy on them يعني energy كذي كبر الرئيس مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحكون له عائشة هذا الكاسو لن وقت كاسو بدنا أكو محلي هذا برد الرئيسي وحاس هذا الكاسو كله يسد وحكف يعني كلية إنا وجوابتد وعليكم وحائلة عشين anigana nila jeclahay marka waa hadal kooban oo yani waqtigaadii energy-gaadina beer dareenin wa calaykum marka waxaa laga rabaa adiga inaa markasta aad ka fiirsatid marna ha siinin jaanis qof akhlaaqdiisa xun inaa same levelkiisa la noqotid markastaba waa inaa adig ka sarraysid ya marna waqtigaada energy-gaadana ha ku beer dareenin qodobka afaraad waxaa laga rabaa adiga marka aragtid qofkan qof oo markastaba yani joogta ee noqotay xumaantiisa oo markasta hadalkiisa iyo ficilkiisaba ee toxic tahay oo markastaba yani marka la joogtid waqtiga inta la joogtid oo kalsoonidaadii iyo moraalkaadii iyo shucuurtaadiba hoos u sii dejinaya qofkaas camal waxaa laga rabaa adiga inaa xuduud u samaysid xad inaa u lahaatid yani xiriirkaas aa la leedahay to set your boundaries baa la dhahaa yani inaa xuduud inaa lahaatiin la dhaafin yani khad inaa u samaysid qofkaas how much aa la xiriiraya how much aa la fadhinaya iyo inaa waqti badan ku isbangarayn because yani saameyn weyn waxay ku lahaanaysaa nafsiyadaadii iyo adig kalsoonidaadii baa hoos usii dhacaysa marka maxaa laga rabaa qofkaas camal marka aragtidba qofkaas inuu hadal wanaagsaneyn inuu ku dhahayo ama inuu yani usoo jeestaba usoo bareerayba inuu hadal khaldan kula dhaho kaba dhaqaaq waqti baa ha ku weysgareenin agtiisana haba fariisan tusaale waxaa taas ka mid ah Nelson Mandela madaxweynihii hore oo South Africa markuu dhalinyarada ahaa intuu madaxweyne noqon markuu dhalinyarada ahaa oo college-ka dhigan jiray marka waqtigaas waxay ahayd waqti oo cunsurnimada iyo midab takoorka oo aad u sareeyay oo yani sida dadka oo yani oo si direct ah dadka oo maxaa wadanku u dhashay oo loo attack gareynaya bi kamid ahayd marka mar oo kamid ah maalmaha waxa asaga uu soo fariistay kantiinku soo fariistay cuntadiisu cunay uu iska fadhiyay qofna waxbana la hadleen meel buu iska soo fariistay cuntadiisu iska cunay marka macallin oo cadaan ah oo yani cunsurnimada aad ugu badan tahay akhlaaqda aad ugu yartay intuu soo imaaday oo asaga u dalaha uu soo ag fariistay saxankiisa itareygiisa soo qaatay uu soo ag fariistay marka saas uu soo fariistay wuxuu dhahay meeshaan ma aha inay shimbiraha iyo xayawaanada waliba xayawaanku ku sii tilmaamay yani inuu ku xumeeyo Nelson Mandela oo rabay xayawaanku ku sii tilmaamay wuxuu ahaa doofaar yani wuxuu dhahay azakum Allah doofaariinta iyo shimbiraha inay isku meel wax ku cunaan ma aha marka Nelson Mandela wuu fahmay qofkan inuu qof xumaan u dalnay wuu gartay waqtigiisa muu ku wasgareenin isla markiiba markuu uu ka istaagay wuxuu dhahay you know what qofkan qof toxic ah waaba inaa ka kaca meesha markaas markuu ka kacayana erey cajiib ah buu ku dhahay wuxuu ku dhahay marka meeshan waa inaa ka duulo haddaa meeshan wax ka cuni karin oo xayawaaniinta wax la cuni kar meeshan waa inaa ka duulo يعني يا شمبرتي مركا يا واي شمبرتا دوليسا واسغا هدونا اعزكم الله حيوانك او خنزيرك او كشيغا اما دوفارك كشيغينا يا واي وا معلنك مركا waxaa la rabaa يعني short and smart response ina lahaatid يعني
haddaa la hadlaysid qofkaas inaa erey gaaban inaa kusoo aruurisa hadal gaaban oo kusoo aruuri oo marna akhlaaqdaadii adiga hoos u dejinaynin waqti badanna ha ku isbangareeninba inaa la joogtid because haddaa lasii fadhid murankiyaa sii badanaya dagaalkiyaa sii badanaya hadhowna adiga niyad jab iyo xumaan ama waxaad adiga jecleen baa yani adiga samayn doontaa marka qofkaas camal hadduu toxic yahay sidii aayadda noo sheegtay wa acrid can iljaahiliin kaba fogaaw waqti badan ha ku weysgareenin qodobka ugu dambeeya waa kan ugu muhiimsan oo ah adducaa thumma adducaa thumma adducaa liannu ilaahay casa wajal aan ka baryeeno wax kastaba ilaahay casa wajal asagaa yani quluubta ibni aadanka asagaa haya ibni aadan kasta shartiisana ilaahay casa wajal baa kaa xafidi karaa marka waxaa muhiim ah mar kastaba inaad ka ducaysatid ducaa waxaa ku jira xusnul muslimka oo duco mar kasta dadka oo yani ka baqanaysid dhibkooda ka baqanaysid shartooda markaad rabtid inaad la tacaamushid markaad rabtid ina yani wax la wadaagtid sidaa uga ducaysan lahayd ah allahumma innii acuudu bika min شرورهم اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم يعني والدعاء مهم وحس مسلم كين كجرتا دعاء كلب والدعاء قصة له قصة داسنا وحي كساب سناد عالم وين وقت التابعين توحى لهاي الحسن البصري حسن البصري وقت كمد يعني مركو نولا وحا حكومي جري مدينة ديسا أما ميشاس أو عراق وحا حكومي جري وليك أها الحجاج بن يوسف حجاج بن يوسف وحو أهانين أو عانكو أو يعني دادك ديليتان كيسا علومدي كسو هرجيدستا أو أشيكتا إنو وحيالا خلط كو سمينايو قف كستو كسو هرجيدا أو كسو هرجيستا أو كودا وحا سمينيسد وخلص أما وخلط وديلي جيري marka حجاج بن يوسف وحو مقلي حسن البصري إنه عالم وين يهي أو مدينة بصرة عراق كجوجو أو يعني وداد أو محترم أو دتكو دن كدنبيان أو ساسنا يعني إن بابليك لنا أو دليلايو حجاج بن يوسف يحكم كيسي وحيالا خلط كو سمينايو أو دتكو شيغايو حجاج بن يوسف وتشداي وحو دها نينكا وابا إنا كتخلص عالم كان وإنا كتخلص واللي بدتك أيكو أركايان وإنا كتخلص أو يعني أندلو مركا سبحان الله حجاج بن يوسف وحو الدري يعني أسكرتي سيو الدري سيدي حسن البصري وصو كحيان وهدونا محالي لهذا وودي لحجاج مركو مجلس كيسي وصو سعودي أسكرتي ويكند تايم حجاج بن أمين حسن البصري والسو كحيي أسكرتي سيو حجاج بن يوسف باكوربا بس مركا عالمك حسن البصري وو فهمي كل بوحو دهاي يعني نين او شرميران واي كل بخير كما سو سوده اكتيسا مركو مجلسكيس اسو دوا واسق اسو دوا وحو كدعيست دعاء عجيبك وحو دهاي يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي إلهيغا او نمعده اسيي او إلهيغا كربك كستا markii ay qabsato u noqdo اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم وحكستان كول ولايو وحكستان كبقنايو وحا إيقادكتا قبو إيو برف إيو نبض يعني بردا وسلاما نبض إيو برف إيقادك يعني وسوى ناكسن إيقادك كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم سيدا أو يعني إبراهيم عليه السلام مركي نارتا أو لغتور سيدي يعني نارتي أو إبراهيم عليه السلام أقوبين أو يعني بردي السلام أهد إلهو أنيجنا نبكان أو نكان أو يعني إيسو وضو بردي والسلام إيجادك أن سبحان الله يعني حجاج بن يوسف وحو قدن لها ما هي أوبزيت كيسو سماية بالعكس وبصور لويي واحترامي محالة هديد بو هاي هلو كانوا يعني وحيالي ددك كلا كفلا ددك كلا وحي سلاهي ودلي دونا لكن إلهي عز وجل دعادا سو حسن البصري إلهي أقبتي أو مركز حجاج بن يوسفنا إلهي شرتي وأسو وذي حسن البصري إلهي وكحجابي وناقنا بوكو بدلي marka ducada faa'iidadeeda waxa kamid ah Ilaahay Azza wa Jalla dulqaadkaadana uu badinayaa qof kasta oo dhib badan ama dhib kula dan lehna Ilaahayna uu ka xijaabaya shartiisana khayr buu kugu bedeli doonaa insha Allah intaas ku soo koobeena Ilaahayna waxa ka baryeena insha Allah inuu markasta akhlaaqdeena si wanaajiyo
kuwa oo markasta markay faraxsan yihiinba iyo markay xanaaqsan yihiinba eray wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan dadka kula dhaqma biidni illaahi tacaala ilaahay naga mid dhigo ibni aadan iyo shartiisana ilaahay casa wajal hanaga badbaadiyo biidni illaahi tacaala intaasa kusoo koobeena subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha ilaa ant nastaghfiruka wanatuubu ilayk waa noo muuqaal kale insha allah iyo video kale aan ka hadli doono sidee ula dhaqanaa dadka si wanaagsan insha allah